wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Sheekh ayaa beeniyay wararka sheegaya in xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ay lacag deyn ah oo dhan 80 milyan ay ku wareejisay xukuumadda madaxweyne Biixi taas ma jirto umana qiran laakiin mala hadan yara faahfaahin ka yara bixiyo sida war-saxaafiyeedku ku yimi waxa wasaaradda ahaan nagu marti qaaday gudida dabagalka hantida qaranka ee nagu marti qaaday si aan uga wada hadallo warbixintii maxaan raahdaa hanti dhowrka qaranku uu ka soo bixiyay miisaaniyaddii 2017 iyo talooyinkii gudida marka runtii shir aad u wanaagsan buu ahaa waanu isla eegnay waxaanu ka wada hadalnay arrimo la xiriira maareynta deynta diiwaangelinta hantida maareynta miisaaniyadda madaxyadeeda waxyaabo noocaas waanu isla wada garanay waxaanu isla garanay in arrin walbaba sharcigu sidoo oranayo loo maareeyo loo maro markii dambe aanu soo baxnay saxaafadana hornimi oo ahayd runtii intaas inaanu ka sheegno ayaa maxay lahayd xildhibaanku runtii uu ku daray waxyaabo aanan ka wada hadlin aan jirin waxyaabo aan jirin waxa kamid ah arrinka 80 milyan oo dollar lagu leeyahay dawladda inaka cid wax inagu leh oo maanta amba bangiga dunida amba baanan kala amba dad ajnabi haba yaraatay ma jiro doortan runtii fagaaro ku yooyo tanade maaha waa laga qurux badan yahay anu waxaan sheegay waxa jira isagu tiruu sheegay laakiin tiraadu sax maaha isaga laftigiisu runtii waa laga yaabaa ama garanay runtii ahtig mala siyaasadda yar jiidata laga yaabaa laakiin waxaan ka soo wada hadalay ma yahay scannerka dhinaca kale wasiirku waxa uu beeniyay in aanay jirin cid si gaar ah loo siiyay qandaraas lagu shaybaarayo alaab kasta oo ka soo degaysa dekedda magaalada Berbera la iskaan gareeyo konteenarada badeecada inoo imanaysa horta cid kontraad lagu siiyay ma jirto arrinka iskaankiyo waxa la leeyahay wixii la xiriira xagga nabadgelyada waa inta badan nabadgelyadu la xiriiraan wax la soo marinin waxayna raali ka inaan badee mukhadaraada amba huba amba wax kale oo ku tarbaan la inoo soo marinin arrinka nabadda ama nabadgelyada dekedda iyo badeecadeeda waxay noogu xil saareen DB World cid la siiyay ma jirto anu de korma wasiirku ma aanu qorin laakiin mid maxaan kaaga jawaabayaa iminka maanta aynu joogno miyay jirtaa cid ay dawladdu ay siisay kontraat arrinka ayna keento inka moobi siyaasadda dawladdu waxa weeye ilaa iminka in loo daayo DB World waxa la xiriira maxaan raahdaa badeecada